waaxda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa shaacisay inay soo kordhiyeen hannaan cusub oo qaxootiga lagu keeni karo dalkaas Mareykanka. Hannaankaas oo ugu magac dareen The Welcome Corps. Hannaankan wuxuu dhaqan gelayaa bisha 6 sanadka hadda aan ku jirno 2023. Hannaankan waxaa ka faa'iideysanaya dadka qaxootiga ee jooga meel ka baxsan dalka Mareykanka. Waxa ugu horeysa tijaabo 5,000 oo qof oo la soo qaadayo, waxaana ka faa'iideysanaya 10,000 oo muwaadiniin ah dalka Mareykanka. Arrintan waxay aad u shabahdaa ama ay u dhowdahay arrintii Group 5ka ee dalka Canada, taasoo ahayd in 5 qof ay keeni karaan dad qaxootiya oo jooga wadamada qaxootiga ay joogaan, sida tusaale ahaan Kenya ama Uganda oo kale. Qorshaha waaxda arrimaha dibadda iyo dowladda Mareykanku ay ka leeyihiin ayaa ah inay yareeyaan dadka qaxootiga ah ee ka soo qulqulaya xuduudda koonfureed ee dalka Mexico, halkaasoo dad badan ay si sharci darro ku soo galaan dalka Mareykanka. Sidoo kale waxay uga gol leeyihiin inay yareeyaan kharashaadka ka bixi jiray dowladda, oo waxaa la doonayaa dadka muwaadiniinta ah ee dalka degan inay ka qayb qaataan inay keeni karaan dad qaxooti ah ayagoo wada shaqayn la sameynaya waaxda arrimaha dibadda iyo qolyaha immigrationka ee dalka Mareykanka. 5,000 oo qof ee ugu horeeya ee qaxootiga ee barnaamijka lagu tijaabinayo ayaa ah 5,000 oo qof oo ay dowladdu mar hore ay dooratay, laakiin sanadka hadda aan ku jirno bisha 6 markii la gaaro, qof walba oo muwaadin ah asaga qofku rabo si gaar u keensanaya 5 qof oo wadanka degan oo sharciyada wadanka iska leh, isla markaana shaqeeya iyadoo baaritaan lagu sameynayo rikoodkoodii hore iyo taariikhdooda, tusaale ahaan inay dambiye galeen oo kale. dadka Kenya laga hadlaya iyo inay yihiin dad aan deymo lagu lahayn oo qofka ama dadka ay u dacwoonayaan markaas ay keeni karaan oo ay muddo ilaa 3 bilood ah ay hayn karaan, isla markaana u fududeynaya waxyaalaha aasaasiga ah ay u baahan yihiin, tusaale ahaan caafimaadka iyo sida shaqo ku heli lahaayeen. Haddii aad daawatay dhammaan muuqaalada ku jira channelkan Cabdiraxmaan Travel, waxaa jiray muuqaal hadda ka hor aan ka sameeyey siyaabo kala gedisan oo lagu tegi karo dalka Canada, waxaana ka mid ahayd arrinta Group 5ka. Arrintaas iyo middan laftarkeeda hadda ay ku dhawaaqday waaxda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka aad ayay iskugu dhow yihiin, waxaana ka faa'iideysan kara dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ee jooga meel ka baxsan Soomaaliya sida wadamada Kenya, Uganda, Ethiopia iyo Masar. Muhiim ma aha qofka 5 qof ee dadka soo kaxaynaysa inaad qaraabo iyo family aad tihiin, kaliya waxa weeye in iyaguna shuruudihii ay ka soo baxeen. Shuruudaha ugu muhiimsan waxa weeye waa dhinaca amniga laga fiirinaya iyo dhaqaalaha, iyo inaad adigu laftirkaaga aad buuxisay shuruudihii qaxootiga looga baahnaa. Intaas haddii la helo, wixii intaa ka dambeeya farsamo ay noqonaysaa. Waxaan rajeynayaa inay dad badan ka faa'iideysan doonaan sida ay uga faa'iideysteen arrinta Group 5ka ee dalka Canada. Xoghayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay inuu nidaamkan noqon doono nidaamkii ugu muhiimsanaa uguna casrisanaa ee dadka qaxootiga ah loogu fududeynayay inay ku soo galaan dalka Mareykanka, iyagoo markaas asxaabtooda iyo faamilkooda ay keeni doonaan. Madaxweynaha dalka Mareykanka John Biden ayaa isku dayaya ama qorsheynaya inuu wax ka bedel badan ku sameeyo nidaamka qaxootiga ee lagu tegi jiray dalka Mareykanka, maadaama madaxweynihii isaga ka horreeyay uu carqalad ku sameeyey, sidoo kalena uu muwaadiniin 8 wadan gaaraya uu xayiraad ku sameeyey oo ay Soomaaliya ka mid ahayd. Waxaa la filayaa in sanadkan dabeeqadiisa ay soo bixi doonaan sharciyo cusub oo wax looga bedelayo sharcigii hore ee Mareykanka ee qaabka qaxootiga ay u soo qaadan jireen iyo dadka markaas sida sharci darrada ah ku soo gelaya waxa laga yeelayo. Barnaamijkan ama hannaankan cusub ay soo kordhisay waaxda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka iyo dowladda Mareykanka ee loo yaqaano Welcome Corps ma ahan mid carqalad ku sameynaya ama ka hor imaanaya barnaamijyadii hore ee dalka Mareykanka lagu imaan jiray, tusaale ahaan midda familka isku dacwooda iyo qaxootigii ay ka soo qaadan jireen dalka dibaddiisa. Laakiin kaliya waxay u sameeyeen fududeyn
in dadka shacabka iyo muwaadiniinta ay dadka qaxootiga ah dalka keeni karaan. Barnaamijkan waxaa horey ugu jiray hay-adaha iyo urur diimeedyada, tusaale ahaan kiniisadaha oo kale ayaa dadka sidaa ku keeni jirtay, laakiin hadda waxaa loo ogolaaday dadka shakhsiga caadiga ah ee muwaadinka ama dadka waddankaasi ka haysta deganaanshiyaha, islamarkaana rikood fiican leh, shaqo haysta, dembiyana aan horey u gelin, inay keeni karaan dad cusub oo qaxooti ah dalka Maraykanka, maadaama la filayo 2050 in dadka shaqayn kara ee xoogga leh ay ku yaraanayaan dalkaas Maraykanka. Shirkadahana ay u baahan yihiin dad shaqaale ah oo cusub oo markaas shaqada sii wada, maadaama ay dad badan ay geli doonaan 2050 nidaamka beeshanka ama dadka waayeelka ah ay galaan marka ay hawlgabka noqdaan. Sidaan hore kugu sheegay, barnaamijkan ama hanaankan cusub ay soo kordhisay waaxda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka waxaa looga dayday nidaamkii qaxootiga ee Group of 5 ka ah ee dalka Canada. Sida hore ula socotaana sanadkii haddana la soo dhaafay, dowladda Canada ayaa ku dhawaaqday in dalkeeda ay keenayso dad nus milyan qof gaaraya oo dalkaasi qaab qaxootiga loogu soo qaadayo. Akhyaarta sharafta leh, baryahan muuqaallo ma soo gelin janaalkayga ilaa muddo 4 bilood ku dhawaada. waxaan ku mashquulsanaa arrimo shakhsiyan oo i gaara. insha allahu tacaala haddeertaan barnaamijyo badan oo arrimaha socdaalka iyo immigrationka ah iyo akhbaarta ah ayaan soo kordhin doonaa insha allah. waan kaaga mahadcelinayaa inaad ilaa dhammaadka nala soo gaartay. muuqaalkiina maanta intaasuu ku egyahay. insha allah muuqaalada noocan oo kale ah oo soo badin doonaa, annagoo isku dayna in asbuucii mar ama 2 mar muuqaal soo gelina janaalkan. fadlan janaalka haddaad weli subscribe saarin, mar labaad waxaan siinayna inaad subscribe noo saarto iyadoo dhiirigelin oo ah annagana si aan muuqaalada ugu soo badino insha allah. intaan muuqaalka gaarayno waxaan kaga tegayaa assalaamu calaykum.